waxaan rabaa marka maanta waxaan xusuustaa hadda ka horaa waxaa dhacday dugsiya garas nooga samaysnaa garas dugsiga qur-aanka garas weynaa hoosta laga dhisa ilmihiyaa marka dugsigii inta dhibsaday yidhahd aan garaska iska goyno garaskiyaa marka habeenkii inta la yimidaa misaarni walba qaataa jas la siiyo garaskaa dawduma meeltaa meel cawni cashar loo doonta ma leha malcamadna waxaa yidhaha dadka reer waqooyiga annagana dugsi qur-aanaan dhahnaa marka ilmihii waa farxeen marka aaday u farxeen maxaa yeelay birrida dugsi la aadi maaha haddii ay ogaa lahaayeen marka haddii qur-aanka la bartay in wax lagu dheesa ma ogtaa markii iskama goy lahayn soomaaliya yara aad moodo marka carruurtii oo ku farxaysay malcamadiyoo dintay ay u ekaa jirta laakiin hadda waa ka korta maxaa yeelay dawladda soomaaliya aan dhisna haddaan dhahay maranba iska diminaanta hadda ugu dhisayaa lagu leeyahay sidaa darteed marka maanta waxdheefkeedii iyo nolosheedii waa noo bilaabanta waxaan rabaa marka inaan kusoo hal aayadaan marka kusoo gaado isxilqaanka aayad qur-aan ahaa sharciyeyhe ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajlisi fafsaxuu wuxuu leeyahay kuwa allaya rasuul rumeeyey haddii laydiin yidhaahdo majliska ballaariya haddii laydin yidhaahdo majliska ballaariya ilaan waa kan hadda qof hadda u yimaado inaad dhinac u durugtood meel siisato looma baahno marka majliskaas waxaa waaye meeshii wax laga xukumaayo hala ballaariyo waa marka ra-iisul wasaaruhu marka wasiiradan ou dhiibaayo oo xilalka ou bixinaayo waa ballaarinaya wuxuu ballaarinayaa meeshii wax looga talinayo fasaxu waa nabiga agtiisa nabigu markau inta fadhiyo haddaad timaado marka waa in la ballaariyaa marka meesha wax ka xukumaayo nabigu waay meeshina nabigina anagaa matalayne moogta hadde nabi moxamed dadka matalaya oo muslimiinta annaga waayo cid kaleo oy matalaysa ma jirto marka fasaxuu yafsax illaahu lakum ilaahay idinkana waa idin waasaca arrimihiin wa idaa qiila inshizuu haddii laydin yidhaah kaca oo danta guud ka shaqeeya salaada dukada wax khayra sameeya haddii laydin yidhaahna fanshizuu kaca ha iska fafadhina marka haddii lagu yidhaahdo maanta gobolkii banaandira uu yidhaahdo hala dhiso dalkaaga dhiso ama uu yidhaah dawladdu ama uu ra-iisul wasaaruhu yidhaahdo war dalkeenna aan mutadawacnimo ku dhisanna haddii la yidhaah fanshizuu waaye kaciddaas waaye waa inaad kacda yarfac illaahu ilaahayna markaas kor ou kuu qaada adiga hadda aladiina aamanuu minkum kuwa idinka mid oo allaya rasuul rumeeyey kor ayaa loo qaadaa maxaa yeelay danta guud ood u kacday ayaa ilaahayna markaasoo korkuugu sii dhiga waxayba ka dhigantaha marka adoo jinna ku gala shaqadaas aad qabato waaladiina uutuu lcilma darajaati kuwa haddana cilmigalana darajaad dheeraaday leeyihiin oo iyagana koray u sii ahaanaysaa waxaa waaye marka kuwa la jiidaayo kuwa jiidaayaa ka darajo badan ka faa'iido badan maxaa yeelay ninna waa cagajiid ninna waa daacad kaas daacadda ahaa horumaraa marka sidaas darteed marka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marka waa inay u kacaan oo ay ka faa'iidaystaan isxilqaankaas ama dalkaaga dhiso waddaniyaduna waxay qur-aankay ku jirtaahoo falamaa qallaa muuse alajala wa saara biahlihi nebi muuse markii uu soo qaxoy fircoonka soo qaxay ee madyan uu yimido shucayb gabadha uu ku darsadee 8 sano amba 10 sano oo u shaqeeye oo ijaar ka goostay masaroo lagu dilaa how aadiyo muxuu masar u aadaa marka
waddankiisi waaye waddankiisi. annaga marka maanta inaan kuwaan xunka ahoo argagixisada ahoo waxay soo kordhiyeen dagaal waxay ku soo kordhiyeen qarax ay ku soo kordhiyeen ma wax kalay keenay annaga marka baabuur qarxaaya miyaan sahli weynaynaa dhowr sano kadib ma sidiyaan jaahil u naqaynaa shala markayna argagaxaayeen baabuurkaad wadii waa kan dhaxay lagu togtaa la rabaa dhaxay lagu tog ilaaha idinku dhaarshay marka maanta annaga waxaan fahmaynaa aniga dhowr qaraxaan arkay qaraxa annagaaba wili fulayaa maaha inaad dow qaraxo kadib waad dili kartaa adiga maxaa yeelay intaas qarax haddau dhacyaba kadib meesha qoragaa talaa maahayna qarax kale maba jiriyaba marka waxaa laydinka rabaa inaad kuwaas marka aad oo meelahan laga soo waxayaayo inaad jidadka u fadhiisataan daba gashaan aad idinku dishiinaa la raba runtii aniga hadda haddii waxaan maalintii 20 haddii laga dilo moogta iyagaaba iska dhammaanaya marka waxaan rabaa arrintaas marka inaan nimankaasna ka adkaano marka waxaan rabaa inaan wax yar ku daro dowlad goboleedyada waxay hore u yidhaahdeen dowladda dhexe waxaan rabnaa kaligeeray iska tasheehe ma aqbalayna yidhaahdeen markaasaa la yidhi gole golihii amniga la sameeyey waa loo faafiya soo maaha waxaa waaye day ballaarintii aan haddaaya idiin sheegay ee xaq u male moogta inay soo fadhiistaan dowladda soomaaliya waa anigu guddiga amniga waa ku jiri jiray guddi amniyay leedahay dastuurkeenna saasoo tilmaama wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga madaxweynaha ra-iisul dadkaasaa ku jira taliyayaasha ciidamada iyagu marka waxay yidhaahdeen iyagoo markaas tooda xoogsanaayo laakiin aan sharci fiirihay inay yidheen waa shireen waxay soo saaraanna ma ogolo welkamaa la yidhi marka welkan إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا مكة وولكم واي والفضل مركي أودا بيسا بيضبا لا يثبتك بيضبا دي لا يثبتك لغا لغو توفيقا وحالا يري صومالي أنا قفي عدك ري دورة شجلة سوينا اكسنو شعبك صوماليات فرحت جلساك صوبها مالك لا لغو ديري رماد عركتن midaan baaday ahayd fadhigaan baadaan la yidhaah marka fadhi aan lagaa wargelin xataa waa ku baadaa in lagu yidhaaha la rabaa moogta hadda ka horaan gabar oo aan ilmaheera abti u ahay laakiin laba gobol aan kala digin aan waxaan idhi ninkaagi waa baadaan idhi ninkaagi waa baadaan idhi baadda moogta annaga waxaan u naqaanaa wiilkii oo mataqaanaa abtiga aad u aheeda in la yidhaahdo qaalinha laga keeno si loogu duceeyo marka iidhi baadda waxay u taqaan dagaal moogta ninkayga xaad u baadaysa soomaali maysiin arrintan baaddaa marka haddii xataa dawladda la yidhaah waa laydin baada waxaa dhici lahayd war waana baadweyni ogolnahe kaalaya welkan inay jiraan ilaa markii horeba waa baaday ku keeneen tii hore marka hadda marka waxay joogtaa oo hadda aniga iila muuqataa aniga doorashaa igu timida doorashaa la gela dad ila tartamaana waa jiriyaa dadkaas ila tartamaa iga reeba haddii kaleeto dhibaataa dhacee waxyaaba saasa inay jiraanaan u malayna laakiin idinka iidaa iska soo baxaaho war jiraba cakaaro imaanaa la yidhi aad iyo aad u